فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. nabadgelyo isagu waa geesigii islaamka waa xaafidkii weynaa ninka keliya ee qur-aanka xaadiisu la akhrin jirtay mu'minkii malaa'igtu ka xishoon jirtay ganacsadihii khibradda badnaa khaliifkii islaamka sadaqa badnihii mu'minkii guursaday 2 gabdhood oo uu rasuul ka dhalay sallallahu calayhi wasallam isagu waa cuthmaan binu cafaan allaha ka rali noqdee waa qisooyinkeenii ka koobnaa ee taariikhda islaamka xilligana waxaa miiska inoo saaran rabbi hadduu qadaro taariikhdii geesigii islaamka cuthmaan binu cafaan dhalashadii cuthmaan binu cafaan cuthmaan waxa uu ku dhashay kuna barbaaray maka qolo kalena waxa ay qabaan in uu ku dhashay magaalada daa'if sida ay ahaataba cuthmaan waxa uu dhashay 5 sano kadib dhalashadii nebiga sallallahu calayhi wasallam taasoo ka dhigan in cuthmaan rasuulka uu ka yar yahay 5 sano inkastoo ay jiraan qowlal aad u fara badan cuthmaan markii nebiga la soo saarayay waxa uu ahaa 35 jir cuthmaan waxa uu ahaa khaliifkii saddexaad ee islaamka hooyadii waxaa la oran jiray arwa binti kariis bin xabiib bin cabdi shams cuthmaan binu cafaan waxaa lagu sifeeyaa in uu ahaa nin dhexdhexaad ah qof aanan dheerayn aanan gaabnayn waxa uu ahaa nin weji qurxoon waxa uu u dhowaa midibka asmarka loo yaqaano waxa uuna ahaa mid gar weyn leh xilligii jaahiliga waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan dabeecad fiican ra'yi toosan waxaa islaamnimada ugu yeeray abibakar sidiiq waa uu qaatay islaamka waxa uu ahaa 5kii shaneeyey ama qaatay islaamnimada cuthmaan markuu islaamay adeerkiisa ayaa maqlay islaamnimadiisa lugaha iyo gacmaha ayuu ka xiray adeerkii markaas buu ku yiri adeerkii cuthmaanow madiintaada ayaad ka leexanaysaa waxa uuna yiri adeerkii wallaahi sidan baad u xirnaanaysaa ilaa aad diintaasi ka faaruqdo ama aad ka tagto cuthmaan waxa uu ku yiri adeerkii wallaahi ma faaruqi doono diintayda markaas buu adeerkii arkay in cuthmaan uusan ka naqanaynin diintiisa markaas buu iska daayay cuthmaan islaamnimadiisii kadib waxa uu rasuulka u guuriyay gabadhiisa ruqaya dhibkii markuu batay cuthmaan iyo ruqaya waa ay hijroodeen waxa ayna u hijroodeen xabasha waxay ahaayeen hijradaasi 10 nin iyo 5 naagood kadib maka ayuu ku soo laabtay kadib markay maqleen xamza iyo cumar islaamnimadooda kadib markii uu batay dhibkii uu ziyaaday in la dhibo islaamkii haddana mar labaad ayay hijro galeen hijradaas oo ah hijradii loo hijrooday magaalada madiina markii la aadayay dagaalkii badar ruqaya ayaa zaa'id u xanuunsatay waxaana loo ogolaaday cuthmaan inuu iska joogo uuna ka warhayo gabadhaasi kadib markii dagaalkaas laga soo laabtay ruqaya ayaa geeriyootay intaas kadib nebiga cuthmaan waxa uu u guuriyey kalthuum sidaasi bayna ugu baxday naanaysta ah dal nuurayn cuthmaan waxa uu guursaday 2 gabdhood oo uu rasuulka dhalay kadib markay ka geeriyootay kalthuum nebiga waxa uu ku yiri cuthmaan ilaaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye hadday gabar saddexaad ii joogi lahayd waan kuu guurin lahaa cuthmaanow cuthmaan waxa uu ahaa qof sidaasi u wanaagsan qof dabci wanaagsan qof la dhaqankiisu aad u wanaagsan yahay cuthmaan waxaa lagu sifeeyaa in uu ahaa shakhsi afgaaban ra'yi u saaxiib ah xaafid ah taajir ah qof alle maal iyo toosnaan isugu daray geesi ah cuthmaan waxa uu ahaa khaliifkii saddexaad ee islaamka geeridii cuthmaan binu cafaan abi muusa al-ashcari allaha ka raali noqdee isagoo ka sheekeynaya waxa uu yidhi nebiga ayaa maalin waxa uu soo galay beertaasoo ay ku taalay ceel nebiga ceelkii ayuu lugaha ku raariciyey ilbaabkana waxaa soo garaacay ama ilbaabka beerta waxaa soo garaacay cuthmaan binu cafaan allaha ka raali noqdee waxaan idhi waa kuma qofka ilbaabka gargaraacaya waxa uu igu yidhi waa cuthmaan binu cafaan waxaan ku idhi nebiga ayaan idinkaaga soo dalbayaa ee ilbaabka sii joog
nebiga ayuu abi muusa alashcari u yimid waxa uu yidhi ilbaabka waxaa gargaraacaya cuthmaan binu cafaan rasuulka waxa uu yidhi u soo fasax cuthmaan inuu soo galo uguna bishaaray janno waxaadna dhahdaa balaayo ayaa ku haleeli doontaa abi muusa alashcari waxa uu u yimid cuthmaan binu cafaan waxa uu yidhi nebiga waa uu kuu fasaxay in aad soo gasho waxa uuna kugu bishaareeyey janno waxa uuna ku yidhi balaayo ayaa ku haleeli doontaa cuthmaan waxa uu yidhi ilaahay baa mahad leh allahaasoo iigu bishaareeyey janno ilaahay baana u kaalmaysan doonaa musiibada isoo haleeli doontaa ama ii imaan doontaa xilligii khilaafada cuthmaan binu cafaan dhammaadkeedii waxaa soo baxay qolo aad u kacsan oo yara khalafsan oo isbedel doon ah waxa ay ka yimaadeen dhankaas iyo masar waxa ay yimaadeen madiina waxa ay doonayeen isbedel asxaabtii ayaa yidhaahdeen cuthmaanow qoladan waa fidno wadayaal ee aynu la dagaalanno cuthmaan waxa uu ugu jawaabay anigu ma doonayo qof shakhsi muslim ah dhiiggiisa inuu daato qoladii fidno wadayaasha ahaa waa ay yimaadeen madiina dhan ayay qabsadeen waxa ay isku hareereeyeen guriga cuthmaan binu cafaan asxaabtii cuthmaan la joogtay ayaa ku yireen waxaan jeclaan lahayn inaan kaa badbaadino dadkan yacni aan ku ilaalino cuthmaan waxa uu yidhi haddaad imaqlaysaan ama amarkayga aad adeecaysaan waa inaad baxdaan qof walbaahina waa inuu gurigiisa aadaa ma doonayo shakhsi muslim ah darteeda in dhiiggiisa uu u daato asxaabtii sidii ayay guryahooda ku aadeen qoladii fidno wadayaasha ahaydna waxa ay isku hareereeyeen guriga cuthmaan waxa ay ka soo galeen dhanka dambe cuthmaan isagoo quraan akhrinaya ayay guriga ugu soo galeen meeshii ayayna ku dileen isagoo quraan akhrinaya sidaasna waxaa ku rumoobay hadalkii rasuulka uu yidhi sallallahu calayhi wasallam ee ahaa in cuthmaan ay haleeli doonto masiibadaas iyo fidnadaas ayuuna cuthmaan ku geeriyooday allaha ka raali noqdee isagu waa shahiid isagu waa saabir isagu waa xaafid isagu waa zaahid isagu waa mu'min isagu waa khaliifkii saddexaad ee islaamka cuthmaan binu cafaan allaha ka raali noqdee intaan ku kulmi doonno qaybta xigta waa qisooyinkeenii koobnaa ee ramadaanka waxaan idin leeyahay رمضان مبارك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون